بسم الله الرحمن الرحيم وسير رضا شرفت له مرتي شرفت كلاك كلا صعتها يدها عالمية رمضان ميدوبي institutions كمواطنين تليهين كان عصتها يقبل قابية شميرية دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحات وين بيت هاي inaan fursado helo inaan ka hadlo madashan halkan la isugu yimi ee aanu kaga tashanayno dhaqaalaha kulanada noocan oo kala adduunyadu waxa weeye kulanada u horseeday horumarka asbaab badan oo ay uga horseedeen waxa weeye mowduuc kasta waxay yiraahdaan af Ingiriiska expert panel discussions marka mowduuc kasta mushkilad kasta oo la furdaamin kari waayay ama loo caal waayay dad aqoonteedii la halkaas ugu yimaadaan waxba ka soo baxa sida awgeed baa imika discussionada noocan oo kala waxa lagu diro qayb ay ka yihiin research report baa laga soo saaraa dabadeedna saasay ugu noqdaan nooc ah cilmi research inagana aad bay nooga soo baxaysaa wadamada ka soo dooga colaadaha mijaha ayaa madaxa isku bedela dabadeedna dadkii baa la kala garan waayaa qof aan doctor aan baa doctor sheegta qof wastaadaba engineer sheegta confusion ka noocaas ay keenta laakiin waa la isku dhex qasbaa halkan marka la isla yimaado laakiin waa la kala baxaa cidda waxa dhabti ku jirtuun baa timaada halkan faa'iidadana way leedahay inta markaan taa kaga baxo anoo isku dayay inaan mowduucayga ka bixin waxaan anagu wasaaradda qorsheyntu ay maanta halkan iyo panel discussion-ka ay wada socdaanba aanu ka wada hadlaynaa doorka uu deeqaha caalamka aanu ka helno uu ku leeyahay horumarka Somaliland doorkaas uu ku leeyahay wixii tafaasiila tiimka gudaha u geli doona laakiin si kor xaadisa haddaan u idhaahdo waddankeenu walaalayaal wax soo maray 3 marxaladood ayuu soo maray mar wuxuu ku jiray waqti nabad dhis ah uu ku jiray baa jirtay marna wuxuu ku soo jiray waqti dal dhis lagu jiray baa jirtay iyaduna oo 790kii ka bilaabanta iyo waqti la bilaabanta 2011kii oo laga fikiray nidaam horumar ama dejisan oo evidence based waxa af Ingiriiska lagu yiraahdo cadaymo la qiyaasi karo buddiga hawshaasi ninkii lahaa oo sharaf weyn aanu hayno halkan u fadhiya maanta waa Saad Ali Shirabo ahaa andar hogaamintiisa ilaahay umudeysnayn la xuso saddexda marxaladood ee development-keenu soo maray mar nabad baynu ku mashquulsanayn mar waxaan ku mashquulsanayn dal dhis oo dadkeeniba la soo celinayay oo la keenayay intaaba horumar deeqaha caalamku qayb laxaadle oo la dafiri karin bay kaga jireen mar waxa u dhignaayeen imika technically si academic u define gareemayna mar waxa u dhignaayeen nooca ay yiraahdaan waa humanitarian ama gargaar bini aadamnimo ayuu ahayd inta 2011 wixii ka dambeeyayna deeqaha nooca loo yaqaan development aid ayay adduunyadu inoo bilowday oo aan ku dhisnay nidaam dal la aqoonsay yahay qaabka loo siiyaa ayay ku dhisnayd sida awgeed kulankan maanta aynu joogno iyo kulanada kale aynu joognaaba waxa buddig u ah vision-ka aynu doonayno qaranku inuu gaadho waa intaana maskaxda lagu hayo oo ah national development plan-keenu wuxuu sheegaya ama qorsheena qaranku wuxuu sheegayo oo ah in dalkeenu dimuqraadi xasiloon dadkuna barwaaqaysan yihiin oo barwaaqadaasna ay u siman yihiin aynu ku noolaano conceptiska uu vision-kaasi sheegayo haddii aynu afka economic ku sameeyaan isna waa kelmadda economic development baa ka jawaabaysa oo ah sidii uu sheegay Saad nidaam tirooyin lagu cabiro inteeba bila shaqo intee shaqo haysata sidee dadku u faraxsan yihiin access sidee ugu leeyihiin caafimaadkooga sidee waxbarashada access ugu leeyihiin numberka waxaas oo dhan baa economic development-ku uu ka sheekeeyaa sida awgeed shirkan waa shir muhiim u ah arrimaha noocaas oo dhan haddaba
aidka markaynu daba ku soo noqonno ama gargaarka bini'aadamnimadu doorka uu dhaqaalaha ku leeyahay wax kale markaan iska dayno nidaamka dhaqaalaha qaran u shaqeeyo habka guud ee loo maamulo af ingiriiska waxa lagu yidhahdaa macroeconomiga nidaamka tuuliska lagu maamulo ama qalabka loo isticmaalo waxaa ka mid ah in inflationka laga yareeyo dhaqaalaha haddii kale confusion baa inflationka ku dhacaya haddii maanta aidka 3 bilood oo keliya ilaa xaqiiqda la isku sheegay ay international community-gu yidhahdaan waan yar nasanaynaa confusion baa gelaya dhaqaaleena because siduu saacad inoo sheegay maalintiis wasiirku wax badan naguma dhoofino markaa lacag adag inama soo gasho nidaamka keliya ee lacagta adag laynagu soo gasho waa nidaamka aidka iyo xawaaladaha weeye sidaa awgeed macroeconomigeennu khalkhal buu gelaya haddii aanu aid ku jiro horta markaa door lafdhabara ayay dhaqaaleena ka tahay nidaamka aidka adduunka marka sectoriska la eego anigu markaan isku noqdo dib ugu noqdo sidaan wax ku soo bartay sidaan soo ahaa qayb weyn bay ku noqotaa deeqaa caalamka qayb weyn bay ku noqotaa daasadaan ku fadhiisan jirnay miisas bay deeqaa caalamiga weyn investmentkaa shaqaa laga helay annagaa wax ku barannay annaguna waa naga dhaqaalay iminka ka fikirayna inaan wax ku soo kordhino nidaamka noocaana deeqaa caalamku saameyn bay ugu leeyihin dhaqaalaheenna waxaa kaloo ka mida ummadda dhaqaalaha cidda wada wuxuu yidhi ninkii maraykanka democracy is for the people by the people of the people waxay halkudhegaas wuxuu qaataa wax kasta iminka innagu dad baynu nahay waxaanu qorshaynaynaa dhaqaale dadna waynu qorshaynaynaa sidaa awgeed horumarka waxa samayn kara dadkuna waa inay aqoon lahaad waa inay caafimaad qabaan investment weyn bay la geliyaa marka laga hadlayo deeqaa caalamku investment weyn buu geliyaa caafimaadkeenna marka haddii aanay dowrka qaabka noocaasna way u leedahay annagu wasaarad qorshaynta ahaan annagoo raacayna maanaan dejin saacad waa raggii budniga u sameeyey horumar weyn bay ka gaadhay inay qorshayso xidhiidhinta iyo habeenta deeqaa caalamiga ah nidaamyana way u dejisay nidaamyada waxaa tafaasiisha inoogu dhaaci doona halkan waxaan halkan jeclaa inaan ku xuso haddii aanad qofka wax kula qabtay xusin ama aanad qirin dee dadnimadeennu gobonnimo dhaqan gobonnimo aanu leenahay waddamada ingiriiska norway denmark netherland waddamada la yidhaahdo USAID iyo EU ama midowda yurub aad iyo aad baan waddamadaas iyo waddamada kale inaan xusiinba uga mahad celinaynaa waxa weeyaan door weyn bay ku leeyihin dhaqaalahooga haddaba xagga taban marka laga eego arrin muhiima umaan doonaya wakhtigoo yar inaan ku soo koobo deequhu waxay nagu keeneen ama aan dareemaya inay nagu keenaan waxa la yidhahdo dependency syndrome baa af ingiriiska lagu yidhaahdaa waa dadkiioo gacmaha laabtay oo inay shaqaystaan gacmaha ka laabtay oo wax yar ay qabsan lahayn hay-ad ka sugaya ayay nagu keentay arrintaasna waa arrimo ay tahay inaynu adres garayno daraasaadna ka samayno inaan opinion inaan ku sheegin waxa aniga ila tahay saasuna inaan odhane daraasaad laga sameeyo oonuna ku howlanahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu